gudoomiyaha haatan shaqada laga eriyay Saleebaan Xasan Xaddi ayaa waxa uu xilka soo hayay maayarnimo ee magaalada Boorama ku dhawaad muddo 2 sano iyo badh ah kadib markii xildhibaanadii cusbaa ee ku soo baxay doorashooyinkii golaha deegaanka dawladda hoose ee degmada Boorama ee dalka oo dhan laga qabtay 28 bishii November sanadkii 2012 ay isugu yimaadeen kalfadhigii ugu horeeyay 19 bishii December ee sanadkii 2012 ay u calan saareen gudoomiyaha golaha deegaanka ahna degmada Boorama inuu noqdo Saleebaan Xasan Xaddi kadib markii ay siiyeen aqlabiyada codadka golaha deegaanka oo u dhigmayay in ka badan 70% waxaana markiiba halkaasi si kaliya laaba ugu hambeliyay musharaxii kaliya ee isaga la loolamayay dhinaca meeyarka degmada Boorama oo ahaa xildhibaan Cabdi Cismaan Dhegaweyne oo ayna ka soo wada baxeen markaasi xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waan guursaday xanaynay yaanbay baan soo galay waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinaya ragii odayaasha ahaa iyo kuwii mutacallimiinta ahaa iyo kuwii ganacsatada ahaa ee moodayeen inuu kala tegayna waan moodayay waxa sidoo kale isna munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay isla musharaxii loo doortay inuu noqdo duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi waxa uu halkaasi ka sheegay in isaga iyo dhalinyaradii loo soo doortay degmada Boorama ay dadaalku la geliyay u bedeli doonaan wax qabad iyo walibana isagoo halkaasi ka sameeyay balaqaadi ay ka mid yihiin in intii ay afkooda ka sheegi jireen xilligii lagu jiray Allaha doorashada intii macquul ah oo ay ka qaban doonaan waxaan filayaa intii tamartaya aniga oo ay garbahayga taagan yihiin 20 kale ee xildhibaan inaan tamartii la geliyay aan u bedeli doono wax qabad haddii Ilaahay raahdo madax badan baa ka joogta kullee hadal weyn oo dambeeya waynu isku iman doonaa barxadda horumarka waxaan idin ballan qaadayaa wixii aanu afkayga ka sheegi jirnay wixii macquul ah inaan qaban doono doorashadaasi kadib gudoomiyaha haatan uu dhamaaday waqtigiisu ee Saleebaan Xasan Xaddi waxa uu xilkaasi uu maanta u tiriyay hore loola wareegay 26 bishii December ee sanadkii 2012 waxna mas'uuliyadaasi dusha uga tuuray gudoomiyihii isaga shaqadaasi ugu horeeyay muddo 6 sano ahna xilkaasi soo hayay Cabdiraxmaan Shidabile oo lagu xasuusto meeyarkii ugu horeeyay ee magaalada Boorama ka hirgeliyay dhismaha jidlaami ah oo si weyn loogu baahnaa مسؤولينتي سرية كسعودية الدولة كقريب قال مناسبة سياسية كو أمانة مستر بيله إنه بالذهب أحكسون تنا إسلام رهان تاسينا وتاريخ ذميل كجديجين هي تجمد بورما مركز اعتماده وحنا يحل جالس الدولة دو بلن قاضي إن مجيء سميل سر لجو حر دونه عبد الرحمن شدب بيله أيام مركز وحل كاسيكو وريتشين هي قدومية سليمان حسن حدي أيام وح مركزي وريتشي لعقتي يجو بدنيد أبي التاريخ ذا أي لك الوريجان لبما يروح حل كلا ترسنا يا مجالة بورما أو هاي لبا بقول يتبان مليون أو كاش لعقت الصومال لنا يلا بي يتبانكم بقول يسدد $10 أو كشرتي أكاونت كدولة دا. حلكنا ومرتو ما أنت أنا كتيجي بقولين كلا كتيجي دونا وحلاي هاي لها خير هاي موافقية كاتو حكومي يشيل العمود لبا بقول يتبان مليون ما يتدريس هكذا يتدريس هكذا وحكومي يشيل لبا بقول يتبان مليون أو كاش وحكومي يشيل يا الله ويجي نسيب ليه أنا قلت شاني هذي دنيا يقولوا يجي أبني ساسس وده وصلنا وحكوا فيه يجي يا الله بيه ترانكم بقول يسدد $10 وأكاونت كم بيجي لنا وكل يجي kadib markii uu xilkaasi gudoomay ayaa gudoomiye Saleebaan Xasan Xaddi waxa uu halkaasi ka soo jeediyay ereyo kooban oo qaarkood ay ahaayeen ballan qaadiyo مسؤولين لما دلنا وحلاقي أدمينا كتبوا حتى وقت يجي دميسن إلا يجينا ما يقول لنا وبركان ما تاينوا أي نقول لنا ويلكم طالع استشير ميشرو لا روش ميشرو شنت بقولة ساعات من كذاري وارجع داير فردي ولا ما يكون بوليسين ماي وارمي داير سوى ساعات راس كل ما
intaasi kadib gudoomiye Saleebaan waxa markiiba u muuqday haldoor ka soo bixi karaya hawshii ay bulshadu u igmantay waxana isaga iyo mas'uuliyiintii la shaqeynaysay oo uu kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenkii iskii shaqada uga tagay ee Maxamed Maxamuud Faarax Dheereyste ay ku tallaabsadeen horumar kooban oo ku saabsan banaynta jidadka xaafadaha dhexdooda iyo dib u dayactirka qaar kamid ah jidadka dhinacyada ka lumay ee ku yaala magaalada Boorama 8 bilood kadib markii xilkaasi uu hayay ayaa isaga oo telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV kala hadlaya bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ayaa gudoomiye Saleebaan Xasan Xaddi waxa uu xusay wixii uu qabsoomay horumarka degmadana aynu u wada guntano waa la tartamayaa imika horumarka aanu degmada ka wadno waxaanu koow culeys ka saarnaa waa wadooyinka iyo toonbalaanka waad ogtiina xaafadda Sheekh Axmed Salaan waanu kaleer garaynay wadooyinkina waanu saarnay dadkuna aad bay ugu bogeen xaafadaha kalena imika ayaanu kaga faa'iideynaa qalabka som cable runtii xaafadda ugu daran ee hadda aan doonayna bacdal idinaan galnaa waxa weeyaan xaafadda Sheekh Cismaan oo dhammaan wadooyinka ay ka xidhan yihiin waxa kale oo doonayna haduu la yiraahdo dooxan seeraha oo runtii dhibaato badan ku haya bulshada in loo guntado laga qayb qaato horumarkeeda qurxinteeda arrintaasi ugu dambeysay uu ka dhawaajiyay ku saabsan dhismaha bridge-ka xaafadda Sheekh Cismaan ma ahayn mid sahlan marka loo eego dawladda hoose balse arrintaasi bari taageero weyn waxa siiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama oo arrinkaasi kaga soo baxay si iska wax u qabsaa waxa uu ekeyd guulo ay ku faani karaan hogaankii maamulka degmada Boorama marka ay timaado ka qayb qaadashada horumarka gaar ahaan sameynta jidadka cusub ee laamiga ah iyo isku dayga dhaqdhaqaaqyo hor leh balse waxa jiray caqabado soo food saaray gudoomiye Saleebaan kuwaasi oo qaarkood aanay sahlanayn marka loo eego bulshada way fiicnayd in maamulka dawladda hoose ay helaan fursado lagu taageeri karo horumarka degmada oo tusaale ahaan ay kamid ahayd lacag qaadhaan ah oo qurba joogta reer awdal ay gudoosiyeen degmada kuwaasi oo ay ugu tala galeen in dib loogu dayactiro dhiska garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama balse lama garanayo halka ay ku lumiyeen fursadahaasi oo ay ku noqon karayeen xidigo ka soo baxay arrimaha bulshada ee ay mas'uuliyadaasi u hayeen haddii aan xusna qaar kamid ah caqabadihii soo food saaray maamulkii hore ee dawladda hoose ayaa waxa kamid ahaa maareyn la'aanta nidaamyo ku aadan qaybo kamid ah bulshada gaar ahaan kuwooda danta yar leh waa kuwan qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Boorama kuwa ku ganacsada meelo kamid ah dhulka ay dawladda hoose rabtay in ay jid ahaan u banayso iyaga oo si toos ah uga hor mudaharaadaya barxadda hore ee dawladda hoose ee degmada Boorama xadda dibadda dawladda hoose ee degmada Boorama waxaana iyagu isa soo tuway haween danyaro u badan oo ka ganacsanayay goobta u dhow masjidka jaamaca kuwaasi oo ku iibiya cawska tigaada ah xaabada dhuxusha sharabta iyo waxyaalo kala duwan waxaana maamulka dawladda hoose ee ay ka kiciyeen goobtii ay ka ganacsanayeen kuwaasi oo danyaro u badan waxaana ay saaka cabashadooda ay ka muujiyeen xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama wala noo diiday dawladda sharafta meelaha la dejisaana aan ku ganacsano agoon baan kornaa danyar baan dawladda sharafta waxaan ku qabsanaynaa in danyaraan leenahay in agoonaan leenahay in baahan baan leenahay jaamacadiyaan ku jirtaan leenahay maalin iyo buuq baan bixinaa madrasad baan ka bixinaa awlaadda baan u dadaalnaa kiishkaan dhuxushaan iyaan ka ganacsanaa laba kumaan saarnaa inaana waxba haysanay dawladda sharafta waxaan ku qabsanaynaa meel la geysa haddii ay meesha kiishkaan dhuxushaan maxay ka bariisaynay بريك بقى ببعينا فيل بقى ببعينا روح بقى ببعينا كيبا محي هيدا قالكي أنكو بريسينا ولا لودي دي ولا نجهري مال أفريسنا والله راي دولة شرف ترى وحنا قاعد سرينا إلى مال ندكتو أما ماشي أنا نود أما هالك يا نود إيش أنا مال ندكتو يا رب محي تبكي مقالة بور ما كفرسنا يا أنت تدوش شيء بنا يا محي ما كن باير كي يبلغ وين هالكني إما كريا كنا تعادنا يا دولة شرف ترى وحنا قاعد سرينا إلى مال ندكتو أكو يبنا ندكتو أما هالك يا نود أما هالك يا نود أيه socda waxa weeyaan dadweynaha ku jira dhuxusha miskiid jaamaca Sheekh Ali Jawhar marka waxa weeyaan dadweynaha in badan deganaa halka miskiidka Sheekh Ali Jawhar kuna noolaa muddo badan masaakiina qaar goor ay ku jiraan marka danyar ay ku jiraan marka caruur ku korinayay 500 qoysna ka badan weeyaan shaqo kale oo haynaana ma jirto marka meeshii baa imika la naga rarayaa waxaan dooraynaa dawladda
arrinkaasi ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye Saleebaan Xasan Xaddi maruu telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV wax ka weydiiyey waxa uuna ku sheegay ma qof meel sharci darro ku degay in meel loogu bedelo sharcigaana dhigaya inaan bilicda magaalada ka shaqeyno qofka meel wadada degay bilicda magaalada ka hor imanayana xaq baan u leenahay waa wixii ummaddu noo igmatay inaan naagariya ka darrabo karaa waajibna way tahay inuu cawdo cabashiisa dhiibto laakiin si xaq ah u dhiibto qofka wadada degay inuu yiraahdo wadada haleeyda ama guriga halaysiiyo taasi sharci ma aha laftigiisu waxay xidheen baarkinkii ama halkii loogu talagalay masaajidka waqtiga ciida in lagu tukado waqtiga salaadu ay badan tahay dumarka oo kale loogu talagalay bilicda magaalada ka hortimay waxaan ugu talagalay meeshaas inay noqoto meel seeja oo basaska Sheekh Cali Jawhar ay ka baxaan masaajidkana in la siiyo firaaqo halkii lagu weysaysanayay iyo halkii dadka tukanay gabadha dhiganayeen ma ahayn oo kaliya caqabadaha soo food saaray maamulka haatan xilka laga xayuubiyay cabashada bulshada oo kaliya balse waxa jiray kuwa kale oo intaasi ka waaweyn kuwaasi oo qaarkood ay dhowr goor hakad geliyeen habsami u socodka shaqada dawladda hoose ama horumar dhinacyo kale laga sameyn lahaa tusaale fudud ayaa ah in dhowr goor oo kala duwan ay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama uu soo kala dhex galay khilaaf maarayn loo waayay taasi oo gudoomiyuhuna qayb ka ahaa taasi oo maxsuulkeedu noqday inay ka baxaan mas'uuliyiin ka tirsan hoggaanka sare ee dawladda hoose ee degmada Boorama oo la sheegay in xataa isbedelkii hore loogu sameeyay xoghayntii fulinta dawladda hoose ee degmada Boorama ay sal ku lahayd qaybna ka ahayd khilaafyada kala duwan ee soo dhex galay golaha deegaanka ee degmada Boorama isku soo wada duubo inkastoo uu jiro haba koobnaade ee horumar la taaban karo oo uu sameeyay intii uu xilka hayay gudoomiyihii hore ee degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo maanta xilkaasi si rasmi u wareejiyay ayaa haddana sida ay qabaan dadka qaar iyagu falanqeeya arrimaha dawladda hoose ee degmada Boorama waxa ay ku doodayaan inay kala badnaayeen waxa uu soo qabsoomay intii uu kursigaasi ku fadhiyay iyo waqtiga uu soo ciyaaray intii uu xafiiska joogay geesta kale waa nin caynkee ah gudoomiyaha cusub ee isagu haatan mas'uuliyadaasi madaxa loo saaray Maxamed Xuseen Meydhane 2 sano iyo barkii ugu dambeeyay waxa uu ka soo tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Boorama waxa uu ka soo baxay urur siyaasadeedkii hadhay ee Rays ma ahanin sidaasi wax badan looga sii yaqaano waxa uu ahaa shakhsi si lama filaan ah ku soo koray saaxadda siyaasadda ee degmada Boorama kadib markii uu ku soo baxay doorashooyinkii golaha deegaanka ee sanadkii 2012 balse hadda waxa uu ahaa ninka kaliya ee loo saadaalin karayay inuu xafiiskaasi la wareego waana shakhsi lagu tuhmayo waayo aragnimo badan marka loo eego xildhibaanada kale ee ay ku wada jiraan golaha deegaanka degmada Boorama waa qof ay dadku ku sheegaan inuu yahay qof ixtiraam badan oo dadka fadhiga uga kaca balse marka laga yimaado waxaasi oo dhan maayarka cusub ee magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane waxa hadda hor yaala in uu ka dabaasho caqabado dhowr ah oo ay ugu horeeyaan mideynta mowqifyada xildhibaano uu khilaaf soo ragaadiyay muddo ku dhawaad 2 sano ah iyo taabagelinta dhaqaale ku filan degmada si loogu taageero horumarka gaabiska ah ee ka jira dhinacyada arrimaha bulshada ee magaalada Boorama waa Ibraahim Cabdilaahi Ibraahim Suxufi Raya TV magaalada Boorama